noqdis caawinaya adiguna ursangeli baaba to kumaba tirsadaane anigaaba ku hayeentay intan ku hayo wallahi kuma hayaan daaroode anigaaba ku qiimeeyo oo ku nabad ku gulo noolo ku ilaashada soo noqdaan ku leey oo odayaashaad yar madaxdaada iyo dadkiina soo raac faaruqa ku sheegin imka wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland waa nin warsangeliya anigu faaruqna ku sheegi maayo adeerkayna ku sheegi maayo nin kale mas'uulina faaruq ku sheegi maayo waayo ma cadaysni marka dalkaaga iyo dadkaaga ku kufriyeen soo raac baan ku odhan la qabiil waxba ku tar maayo wallahi waad ogtay inaan garoowe way ogtay inaan garoowe ta iyo ba ka ahayd ya waxa laga yaabaa in yaro jaarkooda isaaqo ergaabo la degan ku xumaynayso ama cad kala hayso marka ilahanay istaba qaban ku leeyahay ku soco okay way garashalka ku istaag ilahanay ma maqashaa ilahanay arinta laga hadlayo okay ilahanay ma maqashaa ilahanay arinta ciidanka laga hadlaa dagaalka hadda iida ku soco ciidanka waa maqlaaya fardad loo joogo maxaa la iskugu faani weeye xaaladu ciidankaasu meeshuu tagaba waa la arki doonaa cabdiweli cida soo qabato waa la arki doonaa garasha horta daciif hadday cidi tahay adaa daciifa anigu kaama dhex hadlin sanqadhba xaafadda ka baxaysa sanqadhaasuu maqlayaa ninka la dhaho majo mana hadlin dadka meesha daawanayaana way arkaan inaana kaa dhex hadlin adigaa waxaa tahay qof iska boodsan waxaan kuu sheegayaa aniga dad iyo dal aad leedahay oo aad ogahay maba jiroba dal iyo dad aad leedahay ma jiro dalalkan aniga ayaa ahaa kuwii u diiday in maxay la qaybiyo taariikhduna waa wax qoran soo waxa garatay maaha garaad maxamuud cali shiru waxa kii yiri oo ingiriis oo xornimada nasi annaga waxa noo talin meeshaan doonaan ula aadinaa afar sano ka hor intii aan xornimada la qaadin markii ingiriisku doonayay inuu sii kala qaybiyo oo dalka yiri oo waxaan ka dhigayaa gobol soo waxa garatay maaha maxay isaaqan aad sheegaysidna aniga isaaq dhul ay leeyihiin ma degan dhul aan anigu leeyahay deganahay daaroodna waa mid daarood adigu u kala dhexdhexaadin maysid haddaad moodaysid daarood maxay in oromo lagu soo daro sida qolyaha aad adigu ka soo jeedid oo kale ma aha marka xishood afkaaga u xishood inaan kugu sii fogaado mar raba wax badan baanu ognahay isaaq waxay yihiin baanu ognahay isaaqa dhabta aanu ognahay wax kasta aanu ognahay ka xishood ummadda Soomaaliyeed annagana naga xishood warsangeli waa la yaqaanaa waa sandaladii ugu horeysay daarood waa sandaladii ugu horeysay waqooyi waa dadka ugu taariikh dheer ma aha sidaada oo kale dad shalay soo bilaamay soo waxa garatay ma hadallada tan laakiin waxaan uga jawaabi lahaa qof ciida gala cad dadka taariikhda caadiga ah oo xilli hore waxoodu soo bilaabeen oo dadku markay taariikh leeyihiin oo sandalada soo lahaan jireen ayaa waxooda arrimahooda la ogaadaa marka aniga horta kuma jawaabi karo oo waxaan kaaga jawaabi karin meel hoosaad ka bilaabatay oo iskuba taariikh ma yihiin iskuba meel ma yihiin marka aflagaadada jooji aniga cid igu kalifaysaana ma jirto ergaabadan aan sheegaysidna been ku sheegi maayo wax ka shaqeeya heshiis ergaawo meeshii la baxday afar beelo waxa ka shaqeeya heshiis daar boqolaal oday la isku kala dhaariyay ilaa xilligiina dagaal kama dhicin aanana kama dhicin cidna isma raadsan wax kalena la iskuma raadsan marka walaalay Somaliland Somaliland haddii magacii ingiriisku bixiyay gumaystuhu bixiyay aad idinku ku dhigteen oo dadkii kale idin daayeen oo idin dhaheen waanahay ku shaqaysta magaca hadduu wax idin taraayo nimanka aad sheegay sidoo idin shaqeeyana haddaa caydadii haddii kale ma kala jeceliba waa niman shaqo tegay waa niman shaqo tago meeshii ugu xumeed u shaqo tegay waxa doontid ku dhacay maba la'aawa anaaba kule waa caayay anaaba kule waa caayayino meesha ay tageen baa aragnaaba iyo meesha ay ugu shaqo tageen meesha ay tageen baa aragnaa meel cid ay matalaan ma jirto laakiin waxiina idin kaale hadday idin wanaagsan tahay ilaahay idin barakeeyo hadday xun tahayna idinka hagaajisan karo de waxiina idinka nooga warhayo oo idinka hagaajisan kara laakiin anagu kumena jirno haweenna midnihin shaqada iyadana maaha ma fahantay macho ma aad marka waxa wax isku bahalkaysan maaha marka ina yar baa tahay isdeji aqligaaga isku celi maxay aqoonta aad sheeganaysid isku celi aflagaadada jooji aflagaadada laguma noqdo garasho aflagaado iyo buuq dal laguma noqdo run baa kuu sheegayaa goormuu daarood mid ahaa daarood muxuu mid u
daarood mid waa yahay laakiinse waa kala deegaan bedelan yahay daarood waa qabiil weyn dhul kala fog buu degan yahay ma aha afar xabo isku muuqato degmo iyo tuulo isku dhow oo iswada gaadha ma aha waa runta daarood iskuma dhowaa laakiinse waa qabiil weyn midna ma noqon karo oo de meel uu daarood ka mid noqday cid ku noolaanaysaa maba jirtoba cid ku noolaanaysaaba diiqad baaba geli lahayd haddii daarood mid noqdee laakiinse waqtigaaga iyo deegaankaaga ku ekow iyo maamulkaaga aad ammaanaysid iyo waxaaga iskaga ekow waan ku oran lahaa okay ilaahay oo ka dhamatay ku soco garashay anfariirka qofku markuu anfariiro okay maaja qofku markuu anfariiro kolba meel buu ku boodaa ilaahu haya maya mar naga wada yeersiin habaarro waa dibad isaaq ilaad kala qaado ha ku horta isku day jala laga yidhi ama idagala amaanta way leeyihiin aniguna amaanta waan leeyahay idagala amaantiisa aniga amaantayda weeyaan ma aha sidaada inaanu kala xanaaqayno ma aha sidaada maanta haddaan ma jirto amaano ama ma jirto wax laga sheego inuu warsan gelis waqtiinayo ma aha daaroodna maanta haddaad adigu jeclaan lahayd ilaahay kama dhigin mid ilaahayna isma jeclaysiin daarood ku dhowda anigu waa united baan arkaa united ayaan arkaa waxa tirsiinay isu geysay ma aha waxa doonta u soo tiri kombiya kablalax micnihiisu waxay waa la yaqaana taariikhdana waa laga badiyaa aniguba dir baan ahay meesh walbana waan degaa laakiin isaaq anigoo ah ayaan Soomaali oo dhan anigu dabada u laabay cidna uma baahnay aan ilaahay ahayn waxaan ku sheegayaa wuxuu maadhow maxaa ku geeyay ceebta docdaada taal ma adiga isar iyo wax kale dadka ku caayay adiga warsangeli bal cid kale ka kale adiga warsangeli naabay door waayo jiri badnan oo warsangeliya oo isaaqa oo sacad muusa oo reer makaay la yiraahdaa jira ya oo la yaqaano oo wasiirkan kamid yahay wasiirkan imika Somaliland haysta reerkoodu kamid yihiin marka idinkoo united oo waliba jilibadiinii hoose ninkan garaad hebel galaad maxaygaad waa maalintii aan dooda soo galay ilaa maalinka maantaana ninka wad ku doodaa taariikhdaadu inta ma dhaafsiisana anigu taariikhdayda dhowr boqol oo sano ama qarniyaan ku soo tirsanaya ya ingiriiska sheegisana dadkii kiciyo anaga horaan uga hadlay anu ma jecli doodii horaan ku dooday inaan ku noqnoqdo sida gabadhan aan ma aragtay ku soo celceshada ma jecli cidii ingiriiska kicisay waa loogiyay cidii 60kii dagaalantay waa la ogiyay wixii ka horeeyay cidii dagaalantay waa la ogiyay daraawish waa loo hayaa in abaal laakiin daraawish waa jabtay 1920kii bay jabtay dalkana cidii xoreysay waa la ogiyay dadkii ku qaatay maartay calankoodii ciidooda nin walba wuxuu helay halkiisu geystay halkii laga taagina waa la ogiyay ya ama nin loo yeeray waad ku cadeynaysaa in garaad hebel loo yeeray nin maqnaa ninkii joogay baa keenay taa ku noqon maayo marka idinkiina united-ka isu geegeynta ah ma aha qof dadkuna hadday isku geegeyn yihiin way aakhirka way kala tagaan sida ay u kala tigeen daaroodna haddii ilaahay mid ka dhigayaan ugu diidi maaye daaroodo kaa maxaarka isu dhiibaya 27 sano ayay hawiye xukumayeen xamar laba jeer buu daarood qabsaday marna maxaaru keenayo Cabdullaahi Yuusuf maxaaru keenay xamar keenay marna farmaajo wuxuu dhiibay halyeeyga ugu qaalisanaya ciidanka qaranka Soomaaliya kamid ahaa ilaa sana soo dagaalamay am xaraw dhiibay labaduba daarood ninkuna daarood waa isna waa daarood marka daarood wakaase aniga daarood wakaase hay sheegnay wax kala horta iga sheeko waan ku aqaana dadka kale koonfurta hadaan ku fahansan cid walba horta waa ku taqaanaa laakiin anigu qaasatan gabar waqooyaan hoos si fiican ma ku aqaan maanta ninka ogaadan aniga xabadigu ma soo ridi karo godobtaydu ka baqaya ninka mareexanay kuma soo rid karo ma soo gaari karo de wuxuu qaban karaan jirinba marka adigaagan aan ku sheegay maanta Somaliland ah ciidan iyo cid baa aniga tahay laba midab sidaada falaagoobay anigu tirada kuma darsanayo laakiin kugu sii tiigaan maayo gabadhan sinahay baatay aydi lagaadadaan adigaaba ku meedhanayo isxumo dadku caayaya wixii agtaada yaalay baan anigu imika ku sheegay anigu kumana caayin kuma baaqaan sideen ku caaya laakiin cidaadaan sheegay inay united oo isu geegeyn tahay waxaan kale ku sheegay qaranka Somaliland ama laba gobol iyo bar ha noqdo ama laba gobol ha noqdo ama nus gobol ha noqdo waa ka ciidankii qaranka iyo maanta adigana ka cidisiyay ergaabadana leedahay nabadda lagu nool yahay Allahumma calanka Soomaaliya
saacad qaadatid in gelin lagu baabin la maxaa la isga faani baa tiri haa laba jeer bay soo duuleen Puntland iyo kuwa aad maaragtay ehelka ka dhiganayso laba jeer bay soo duuleen way ku soo gaari laayihiin adigay ku soo socdaan inay ku gumaysan ku soo socdaan maxay ku soo gaari waayeen maxay tukarraq soo dhaaf waayeen imika laakiin wixii ka dambaysa okay way ma jira weerar baa dhacaya xagga damaana looga saaray garasha istaag marka garasha soo istaag qabo walaalwan ay ilaanay ku soo waan ka baxaya soo qabo xamsanoyal ninna soo qabo ka daanaagaho ما قرشة كبعين كوسع نجيسو كوسع قرشة كوسع إلهاني horta garasho waxa istiraahada wax iyadii waa iska shiftay anigu waaba ka xishooday makaahil waa ka xishooday makaahil waa niman warsan galiya dadkuna waa wada og yihiin waana wasiirka warfaafinta ما قرشة يا قسلين مود قل عد كذا كيسو أكيد حقين makaahila waa warsan gali magac dhan baa ku baxday mahmaada xitaa inaa halka ka sheego ma rabo waayo maadaama aanad ahayn haddaad ahaan lahayd maad soo qaadeen oo waxbunbaa taariikhaad hayn lahayd oo jilibada kalaa tahay marka mahmaada ma rabo inaa sheego mahmaha waqooyi laga wada yaqaano qofkii raba dadka daawanayo qofkii raba hadda inay garasho run sheegtay inaa anigu run sheegay waxaad gashaan website-ka isla qoraan nimanka habaryoonis qoraan ee la yidhaahdo Somaliland Weeklies gala marka saacad buuse markaasaad horta baranaysaa cid ay yihiin ninka qabiilka makaahil la yidhaahdana cid ay yihiin markaasaad baranaysaa ma rabo inaan kusii fogaado anigu United cidda ahna saacad muuse iyo warsangada United cidda ah waa la ogyahay Soomaali waa wada ogtahay taana kusii fogaan waayo labadeena ta United waa la ogyahay makaahila inay makaahil jilibka ay midi warsangeli ku jiraan ee in makaahil warsangeli yahayna isaaq dhexdooda aniga xitaa cid kale waxa weydiinina isaaqa dhexdiisa weydiiya because gabayaa ku jira heeso jaandheera lagu qaaday wax qarniyo soo socday bay ahaayeen mahmaahadan baa ku baxay reerka laakiin reerka ma rabin inaan sheego aad baan uga xumahay haddii qof ay ku jiro nin waliba maxay waa bahalkii laakiinse qof baa idinku soo goosatay iyadoo ka cararaysa oromo jilibkeeda laga yaabaa inay tahay qolyihii oromada ahaa marka iyadoo ka cararaysa baa laga yaabaa bay ku soo goosatay marka taasaan kaga gudbayaa maxay warsangelina inay waxay yihiin iyo abtirsiintooda warsangeli lamaba galo warsangeli dad lagu dhex dhuuman kara maba aha waayo waxaad ku garanaysaa laba jirib oo weligoodna dhex deganaa ilaa hadda waana dhex degan yihiin qabiilada kaleeto qabiilada qaar baan laga helin xitaa jilib dhex degan annaga laba jirib oo na dhex deganaa jira forever weli waana dhex degan yihiin iyo jilib kaleeto weli waana dhex degan yihiin iyagoo qabiiladoodii ah oo aan ahayn warsangeli makaahila waa dadkayagii waa ehelkayagii anigu caayi maayo waa ehelkayagii xataa wasiir gurbar waaqo markii buugga uu qoray oo aad loo maagayay anigu waxaan ahaa dadkii Facebook ka difaacay waayo dhiig baa noo soo jiidayay waa nin warsangeliya waa nin xilli iska colaadeed iyo dhibaata jirtay halkaa tegay waa nin meelo kala galay marka inkastoo ay nagu haystaan qolyaha gadabiirse laftarkooda reerkaa nagu haysto dhaha waa annaga laakiin se qolyaha gadabiirsen waxaan leenahay niyoo ka fuqa nimanka ka fuqaanu leenahay si kastaba ha ahaatee horta makaahil halkaasaan kaga gudbayaa annaga iyo gadabiirse baaba isku haysana sacad muuse meesha maba joogaan laakiinse annaga unbaa kule annagu noo tirsan yahay iyaga qolyahan gadabiirse hadda inay la soo baxeen annagayna yihiin marka taasaan kaga gudbayaa tadaarood ah oo leedahay daarood mid ma noqon karo daarood mid wuu noqon karaa midna waa yahay
laakiinse ilaahay baa kuu gargaaray in aan daarood meel xabadda u wada ridin wuxuu yidhi ninkii gebiyey macni isaaq hal meel bay xabadda u wada ridaan waayo waa qabiil yar baa tiinoo dhibtaa wada dareentaan horaa loo yidhi waa qabiil yar laakiin daaradda qabiil weyn weeye oo isma gaari karo oo hal mar wax ma wada dareemi karaan dhibtana ma wada dareemi karaan markaa garasha halkaasaa kaaga gudbayaa kula yaabi maayo reerkii baa tahay laf hoose anigu ciidagale ma faanin oo inaan laangaab tahay wax lagu garanayaa adigu waxaa rabtaa harti inaad kala qaadid laakiin ma rabtid isaaq in la kala qaado marka inaan laangaab tahay taasaan ku garanaya aniga ciidagale ma ammaanay ammaanna igama mudna ammaantooda ammaanna uma haya hadday ammaanan yihiinna iyagaa ammaanan ama afkaygana ammaani u noqon mayso afkaygana u bahalkayn mayso laakiinse inaysan daladii idinku horraysan tahay oo xoogaa idinka wada taariikh dheer yihiin baan qiray ceebna maaha dee dadka wax waa loo qiri karaa oo taasiba soomaali waa wada og tahay inay ahaayeen sandaladiinii marka adiga waxaad rabtaa qof waxaad tahay laangaaba waxaad rabtaa inaad isku duubnaataan laakiin ta isku duubnaada anagu duubniinkiina ma diidayne dee adiguna hana kala guri adiga yaana kala gurin haddii kaleetana adkayso haddii hoos lagugu daadego iska adkayso ilaan adigaa bilaabay hawsha marka isbahalkay makaahiilla waa anigaa caddeeyey awal waa ka warwareegay maxaatana waa ka xishoonayey muxuu ahaa nimankaa samaroonna haddaanba leeyahay samaroon ayhan ugu qabsanina nimankaa waa niman warsangeliya idinba waa og tihiin marka sheekadooduna waa caddahay qofkii doonayana cid kale ha weydiininina qof warsangeliya ha weydiinina makaahiil ciday yihiin waxa weydiisaan isla beesha isaaq dhexdeeda weydiiya ciday yihiin markaasaad ogaanaysaan ciday yihiin ma maqlaysaa aad iyo aad marka garashoy waxaad istiri wax bahalkay laakiinse way kaa bariiqatay waayo qofku markuu been sheegaayo waxbaa kula bahalkeeda qof aan taariikh lahayn taariikhda warsangelina kuma eka xilligii sayidka iyo xilligii ingiriiska cidda soo caanbaxday waa la yaqaanaa ingiriiska cidda la jaan qaaday waa idinka ingiriiska ka hor baa waqtiye jireen dagaalaa dhacay adduunyaa dhacay waxbaa dhacay qisooyin baa dhacay maxaateeneed wax badanaa dhacay yeman dhulakan soomaalida yeman baa joogi jirtay yemaniyiin baa iman jiray bortuqiis baa yimi oo lala dagaalamay boqortooyadii ajuuran oo waqooyi oo dhan maamushay baa lala dagaalamay bel oo dhan baa soo dhacday ragoo isku soo jabayeen maya okay waxaan ku hartay 10 second ku soco soddon ilbirqsi ku hartay ku soco ha soddon ilbirqsi ku hartay marka adduunku ma soo bilaabman xilligii ingiriiska idinkaa u haysta idinkaa ka sheekeeyay ingiriiska marka inaguna ingiriiskaanu idinka soo qabanaynaa waayo taariikh kaleeto ma ogidin bortuqiis inuu dalakan soo qabsaday oo kusoo duulay oo dad laayay oo balaayo dhigay oo ummadii isku jabtay ilahani waa kaa dhamaatay istaag marka ilahani waa kaa dhamaatay istaag ku soco garashay in horta dagaalka daaroodka wuxuu yahay qaniye kaa goysa murankana waaba meheradooda dee warsangeligu masaakiin baa hayno oo nimankaa ma jirteen ba horta faankii iyo murankiiba naga baray allah kaabaan mariye wallahi dhaqankaa may lahayn waad ka xishootay inaad reerka magaciisa sheegto shaambadayso haddaad adigu shalay iyo markii guri barwaaqa la haystay wasaabada aad ka akhriday ama wasaydyada taariikhda akhri weliba xaggiina ka timid ee carabiga ku qoran ee yamanta ka timid ee asalka soomaali iyo reer sanaa kala dhigdhigaysa dubays reerka la yidhaahdo macnaha dubays macnihiisu waxay yaa oo reerka lagu soo dubeeyey dubays reerka la yidhaahdo waa reerka Sacad Muuse taa kugu noqon maayo anigu ina hadalka jijiida ma jecliye taas halkaas ay ku xidhantay intayna dhageysanaysiyo Soomaaliinta ogna way ogtay inta aan ogeyna hadday ogaan doontaa marka dubays waa la yaqaana ciday yihiin laakiin dhaqankiina ah inaad wixii muran gelisaan qofkuna wuxuu dhahaa haddaynu muranno dee waa hadal aadna yidhiyo la kala jiidi maayo marka wixii si aan gar wax la yidhi qofka maaragtay hadalka calaaliya garta lagama helo marka waxaan jecelahay taa in halkaa kaga gudbo danaad leedahay daarood weligiis ma raacin daarood anigu ma kala reebayo laakiin daarood hore mar waa isu raacay laakiin waa eeday mar baa daarood dhaafee Soomaali oo dhan isu kaya raacday
wixii ka gaadhay maamaadii ka baxday sidii daarood dabada lagu rog ayin baan maqli jiray tii ka gaadhay daarood waa yaqaanaa dadbaydan inoogu soo degdegayn maanta annagoo reer daarood is haysana oo isaaq dhaafee somaliland oo dhan ku dhantahay idinkuna dee ninkii ficil hinaasiye hiilin kari waayin baan u arkaa anigu horena waa looga gebiyey taa marka daarood shanshada tanad laagaabka igu caysan oo tad had iyo habeen ku baroorato isaaqba waa wada socdaa maxayna dhigay eed wasaabada kaga oyday eed heli weydeen guulaana laga helaa waa guul rabbinala damco loo dadaal galay rag baa ka shaqeeyey waana asal dhalad waxani waa wax loo dhasho gobonimada allaa bixiya garashada allaa bixiya shan nin oo kala tala ah iyo shan nin oo isku tala inaan isku tamar ahayn waa la og yahay marka haddaad shan kala tala noqoteen shan isku tala bay idinka awood badatay marka taas la ismacariyaan weeyaan ilaahay baa wuxuuna siiyey waana waxa aan ku dheeray waana waxa maanta aad walla eel hadlayso ana lahan xaraga hadlayo weeyaan taasi haddaan eel hadlayo oo maanta eel hayo ama waxyaabo badan dhibsanayo sidaadaasaan maaragtay halka aan joogo ku caasi lahaa oo calankaan harsanayo ku caasi lahaa marka gobonimadeena ilaahay baa bixiya haddii ilaahay adigu wuxuu kaa dhigay inaad ku iinaysato weeyaan laakiin ma aha wixii aad alle ka weyday eed adigu sabab u ahayd aad adigu isku qaybsay inaad ugu cadhootay iyaguna maxay saa u noqon waayeen dee ilaahay weydiiso wanayaama khayr uu kaa aqbali karaa laakiin sasaankeedii wadadeedii ma haysid intaad is yeeshana cidi kuma yeesho intaad is yeesho na cidi kuma yeesho ana adiga nabadda ku haya baan ku yidhi ilaahay ka suko aniga adiga nabadda ku haya Puntland maxaad ku qabtaa Puntland meelaha aan lama taabtaanka hayne sidoodii la isaga nool yahay waxa kamid ah sidii dadkii cawaanka ahaa aan cidiba xukumin waxa kamid ka ah ya laakiin gacantayda ku jira badan iyo hadaftimiyo dhulkaad xaabtaan bal dhulka maxay Puntland ka qabatay maxay ka qabatay nimanka dhulbaantaaba wax isaga tiriyaan haddaba adigoo kale ama inaad cid soo sheegataa bay ahayd ama inaad adigu badada iskanta anigii baad ugu leedahay waxbaad is yeeshay anigii isaaqnimadayda iyo midnimadayda taagan adigoo warsangeliyo haafkaagan aan ku sheegay ayaad anigii igu soo celinaysaa oo anigii igula yaabantay wallahi billahi waa dunyada waxa weey ninka qaawan oo ninka dharka sita la yaaba waaba sidan oo kale marka waxaan ku sheegayaa inaad iga dayato mooyo horta hadaad aqli leedahay inaad igu cayda ma ahayn midnimada ilaahay baa bixiya aniguna waan u dadaal galay Somaliland waxay guul iyo gobonimo ku gaadhay isaaq maanta ma taagnay Somaliland bay taagantoo waxaan wataa maanta warsageliga aad sheeganaysaan wataa dhulbahantaan wataa iyo ciisaan wataa in awdal baan wataayo samaroon oo nimanka xadbada ugu kululay maanta ma jirtin ka qaylinayaan kamida marka de wax markad ummadu aad tala yeelato ninkad kaba u dhiibanaysa la yidhi kabihiisa la eega ninkad kaba u dhiibanayso kabihiisa la eega markad ummad aragto mida ayaa wax lagu darsaday dabkii baxaya dab lagu darsadaa intana soo raacday ee reerkiina kamid anigu mooba arka warsangelina cid ka maqantay nimanka dhulbaantaaba qaar cadaysan yihiin warsangel oo iyagu isu muuqda oo iyagu waliba anaga cad Somalilandida ma iyaga la okay garashoy waa ka dhamaatay intaasna way dhamaatay garashoy istaag markoo ka dhamaatay ilaami maqasha soo gabagabay ilaani marka waa marku gabagabay لكن مكاهيل واجلب هوسه ودبيس waxay ka sii yihiin niman waxay ka sii yihiin ugaaryahan waxay ka sii yihiin Ismaan ugaaryahan waxa weeye Ahmed waxa weeye makaahil Ahmed Ismaan ugaaryahan waajilib hoose ma badsinaba waxaad maqashay makaahil baad dubaysa labada qabiilna ka lagu murasan yahay nin walba waa og yahay oo makaahil inay ku dhagan yihiin gadabirse waa la og yahay annaguna dhinac kaga dhaganahay maaha dhan baana ku baxday xil dareere xilliga ma qaadaa ma dhigaa aan qarxiye waa talabaad warsangeli weligeed warsangeli cid aan warsangeli ku abtirsan warsangeli weligeed ma galan warsangeli waa la yaqaanaa annaga waxay naga maqan yahay horeen caynaasho oo niman habar yoonisi naga maqan yihiin oo sandalada habar yoonisi oo iyagu ugaasnaba waayo adoo raaliya ka dhex galay war u kaali garashay koodaabana ogol baa
ilaa suldaankoodan ogolo reer caynaasho inay yihiin niman warsangeli iyaga taas caynaashiyad maxamed bay galab carowsheen intuu ceelitaan yaa lahaa hay cidwaasado xitaa qolada isaaqna waa og tahay oo ruwayd oo gabadha fudfudud ee habar jeclo baaba isla soo fadhiisatay online oo ninkii galaabeedkeeda ka helayaa tiri reer caynaasho ayaamihii isaaqu is haysteen jeegaan iyo belebele isku haysteen tiri oo reer caynaasho orday naga taga naftii baad nagu dhibteen orday warsangeligiini aada oo taas waa la ogyahay labada reerba waa annaga reer caynaashona waa annaga reer caynaasho weliba muran kumaba jiro oo de reer caynaasho reerkan unbaaba muran ku jiraan oo reerka sacad muuse nagumaba haysana gabadha tan malaa qolyihii oromada ahaaye maxay tiri sacad muusaha kale naguma haysane iyada waxa laga yaabaa qolyihii kusoo biiray reerka oromada ahaaye halkaa deganaa inay yihiin maxay teenay marka iyada unbaa nagu haysatee wax nagu haystay awal marka niman kala dhaho gadabiirse baa nagu haystay annaga gadabiirse baa makaahil isku haysana weliba annaga taariikhdii oo cad baan haynaa laakiinse gadabiirse iyagu waxay leeyihiin jili makaahil la yiraahdo ay iyagu leeyihiin unbay u raaciyeen oo waxay leeyihiin makaahilka waa makaahilka iyagu taa unbay haystaan laakiin annagu taariikh cad baanu haynaa oo nimankaas xilligii halkaa naga aadeen maxay tahay nimanka reer caynaashana dee isaaqoo dhanba oo habar jeclaa ku gabayo ismaaciil carabe gabagiisa ku jiraan oo iyagu waa la wada ogyahay waa niman annaga ah marka haddii aad wax qarxisay aniguna waa fahantahay weligan waa ka xishoon jiray wallahi inaan qabiilo ka hadlo oo qabiilo bahalkeeyo laakiinse adigu waxaan u malaynayaa qolyihii oromada ahaabaa tahay maxay tahay ajaarka ahaa maba tihid badda isaaq marba haddaad makaahil nagu qabsato waayo sacad muuse makaahil naguma haysto nimanka makaahil nagu haysta waa nimanka gadabiirsay nimanka aanu u ognahay waa nimanka gadabiirsay aan isku haysanaayo iyaguna taariikh cad waaba la iman waayeeno xitaa ayaamo dhaweedo inamadooda dhalinyarta ee facebooka ka hadashay hadlayeen xitaa wiil waxyo yirinayo taariikh la kaalay cad nimanka aad haysataan oo iyagoo ku dhegan marka nimankaas waa niman annaga ah nimanka makaahil waxba ha ku fogaanin garasho maxay tisbalaadhi gilgilashakaaga ma hadho sheekadu waa sheeko cad maxay tahay iyaga reer caynaasho ha u gelin haba ka hadlin iyaga waxa ka hadli kara kaliya raggii ka gabiyey ee lahaa nimankii caynaash nimankii habar jeclaa ka hadli kara waxa ka hadli kara maxay tahay maxkamadii wixii ka dhacay u geli maayo waagii ingiriiska u geli maayo suldaankooda waa dad wanaagsan waa dad gooba laakiinse nimanka makaahil aad tahay aad maxay tahay haddii aad tahay gabadh makaahilana inaad irmacaanay wax kastoo ina dhex maray waa kaa raaligelinaya waa haddii aad makaahil tahay siba u gubanaysaa kolley ma tihid asalkii ma tihid waayo lamaadan soo boodeen waxa la yidhi qofku boobta ku taalo waa ka gelgishaa marka lamaadan soo boodeen reerkaas waa reerka iyaga marka haddii aad reerkaa tahayna inaadan macaanay waxaan ku leeyahay cafi iyo masaamax wixii ina dhex maray waa kaa raaligelinaya haddii aad tahay reerkaa dhibaatana waa iska dhacday reerkaasaa la dhaqanteen haddii aanad ahayna waxaa tahay reeraha kaleeto oo qolyaha kasoo jeeda dhinaca oromada marka waxaan ku leeyahay makaahil annaga reerka aanu isku haysanaa waa gadabiirsay oo keliya sacad muuse naguma haystaan isaaqa kale naguma haystaan xataa anaga habar yoonistana soo xigto muuse ismaaciilka oo kale nagama haystaan oo dee iyagaaba maxay tahay nin muuse ismaaciil oo la yidhaahdo maxay tahay xiin dheere la oran jiro cabdixaabiga baa qarnigii ilaahay soo gabagabay jaandheer ku ciyaaray jaandheer ku tumayba oo ku heesay maray nin isku heesayeen marka iyagu naguma haystaan laakiin adigu haddii aad tahay qolyaha oromada ana de waa walaal macaanay de booskaaga adkayso haddii aad makaahil tahayna gabadh tolka tahay cafi iyo masaamax haddii kaleetana de sheekadu ha socoto baan ku yidhi waa soo gabagabeeyey aad iyo aad ku salaam ilaan waa mahadsan tahay asalaamu calaykum calaykum salaam okay garashay adigana soo gabagabay adoo raalliya okay waa soo gabagabeynaya waxa weeyaan saddexaad waxa halkaa ka aragtaa mar saddexaad imka hadday hadli lahaydna muuse bixi baa dana warsangeliya odhan layd markii hore makaahil bay maysay imikana waxay maraysay caynaashay kusoo darsatay mar saddexaad ay kusoo noqon layd waxa hubaala inay ku darsan lahayd muuse bixi iyo ciddooda waxa weeyaan ilaa cadda ay wax ka maqasho waxay noo sheegtay inay maamalyuun iyo ruweydo tahay qof ruweydiyo maamalyuun kasoo shidaal qaata horta inaan maanta oo dhan la murman waqti ku bixiyo waaban ka xumahayba waaban ka xumahay wallahi mar hadday ilaacadeeduba gaadhsiisan tahay reer la yaqaano waxa jira la yidhahdo ugaaslabe way ka booday waxaan doonaya maadaama ay gabagabanaysa ka baxayso inay reerka ka hadasho
warsangeli ayaa iyaguna warsangeliga ay dhahdo waa naga mid waa reer marna yidhaahda waxaanu nahay carab marna hindi adigu waa reer gaar oo reer dood qoran la yidhaahdo oo iyaguna ku jira habar jeclo ayay walaala yihiin laakiin taariikhda wallahi yowgaas labe maaha warsangeli hartiba maaha warsangelina maanta ka dhaadhicin maysid waxa weeyaan waa cid kale iyaga laftooda ugaaslabana way sheegtaan inay yihiin inaan ahayn iyagaaba laftooda iyagaaba qayb ka mid a dhalo bowgaaslaba iyo waxaa leele moogta iyaga warsangeliga ayaa bowgaaslaba iyo reeraha leh mar hadday diidan tahay oo horta aan tii ay qarinaysay ee dubaysan halkaas soo dhigay ay sii kala sheegtay ay qarinaysay islahayeen naagtaa soo bixin dee waa wax la wada hayo cad waa wax la wada hayo cad waxbana dhib ma laha qofku iska jeclaan karaa hello may maqlaysaa maajo aad iyo aad ku maqlaa ku soco anigu gabadha sidan u suubaa salaaxayo waa ciday tahay lafteeda waayo waa raacyada aniga ay agtaagan waa dadka aniga aan u taliyo waa dadka aniga waayo aniga sharaf darraytayna ku joogsado oon asal caayo qof mana aha qof inaan asal caayo sida aniga oromo iigu sheegayso markay aniga oromo iigu sheegayso aniga Soomaali ku hadlaya cidayda iyana garan baahday doontay ay oromo iigu sheegayso sida hadana iigu abtirinayso ii kala qaadayso waxaan u arkayo qof cadha hadlaya doodana cadhadu waa ka madnuuc gobonimada cadhadu waa ka maqnuuc laakiin qof ciilan baan cadho laga waayin qof ciilan ayaan cadho laga waayin waxyaabahan u kala dood duwanahay baa taasa anigu Somalilandan aanahay aan kugu xukumayo eed ugu hoos taagan tahay waatan kugu ilaalinayo hagoyn xarkaha buudi hagaadi lafta hagoyn waxa la isku yahay okay way garasho soo gabagabay marka soo gabagabay garasho waan soo gabagabanaya bilis markay igu xigta xamse royal soo qabo iyo nin soo qabo bilis maacho ay insha Allah waan soo gabagabanaya waxa la insha Allah billahi kariim wixii imika ka bilaabma way bilaabantay maacho waad arki doontaa wiigan ku sii xiga ilhaantaasoo dhuuman doonta xaalkoo isbedel doona dagaal saddexaad ha dhaco waabanu ku dacaysanaa maanta inuu dagaal dhaca anagu dagaal saddexaad ha dhaco tan labaad maxay uga hadli waayeen hubkan Itoobiya na siisay maxay uga xishoonayaan Itoobiya daaroodka balbaanta ya maxay uga xishoonayaan hubkan Soomaaliland la siiyay ciida ka badan maxay uga xishoonay ma sheegaan waa kuwii lacagtii dhiigshilba joog iyo jiifa ka gaban waayay iyadoon jirin waliba ya maacho laftaadu garasho aad ku salaamaya waa maasan tahay shacabka wuxuu sheegay markay soo joogtiin waxaan idin leeyahay doodan markay dhamaato dooda koreysana waa idin sheegay caawa laga bilaabo dooda markay dhamaato Facebook YouTube kan gelinaya dood kasta oo dhacdo YouTube ka daawada Facebook iyo YouTube kiisa gala subscribe saar hadda kadib halka ka daawo dooda markay dhamaato halkaas ayaan gelinaa marka waxaan u sheegaa shacabka qof kasto jecel doodan inuu dib u daawado dhinaca YouTube ka fiiriyo qof kasto jecel dooda inuu dib u daawado ama doodan jecel inuu dhageysto waxaan ka codsanaynaa inuu mataqaanaa dooda ka daawado dhinaca YouTube-ka kulligeen waa idin sheegayaa inta ay dhageysanayso inta kalena waxaan leeyahay gaarsiiya dooda habeen kasto ayaan qabanaynaa markastaan qabanno doodu waa laga saaraya meeshan waan ka saaraynaa oo YouTube-ka la gelinayaa marka halkaas ina kala socota la rabaa dooda waagi hore markaan qabanno Facebook aan u dhaafi jiray si shacabka dib ugu daawadaan laakiin hadda kadib waa dhamaatay doodii laga daawanayay Facebook dib ugu daawanaysa dooda markuu Facebook dhamaado dib 1 second ta kuma arkaysid hal daqiiqo kuma arkaysid meesha markaas kugu dambayso markaaba kugu dambayso marka waxaan leeyahay qof kasto jecel dooda inuu ka qayb galo ama inuu dib u dhageysto hadaladiisa dib u dhageysto ama jecel danaynayo Somaliland iyo Puntland dooda markay dhamaato waxa waaye ka daawo dhinaca YouTube-ka waxaan soo dhigay Facebook-gayga halkaas ka daawo magaca ku qoran waxa waaye Xasan Xirsi waaye halka kala soco dooda live kastaan qabanno video kastaan duubo live kasta aan soo galo dooda markay dhamaato oo programka aan dhaho daan ma arkaysid Facebook dib lagu ma arki doono qofka iska dhaadhicay Facebook dib lagu arki doono de waa qof isla gooyay waa qof waqti iska lumiyay marka caawa waxaan leeyahay shacabku u sheegaya dooda halkaas bay ku egtahay labada gabdhood ayaa ugu dambeeyay qof dambo la wareysanayo intiina waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin doodan waa soconaysaa
inta laga tagaayo magaalada garowe uu ka tagayo muuse biixi inta uu ka tagayo cabdiweli cali gaas magaalada burco gaas wuxuu ballan qaaday inuu tagayo magaalada burco muuse biixi wuxuu ballan qaaday inuu tagayo garowe dooddu waa soconaysaa intaas labada mas-uul hadalkooda oo mid ka mid a oo noqon doono run dooddu waa soconaysaa habeenka waa mar kasto waan soo gelaynaa somaliland iyo puntland dooddu waa dood taagan youtube-kana subscribe saar youtube-kaygana subscribe saar la soco doodday ku dhaafin mar kasta youtube-kaas ka daawo wax walbaad daawatid programka aad jecesha halkaa ka daawo waana idin salaamaa meel kastaa joogtiin waxaan idin leeyahay haddee ha layska warhaayo doodana ha moogaan waxayna udhexaysaa puntland iyo somaliland mar kastana waxaan leeyahay dood kasto iyo program kasto aan duubo waxaan aan gelinaynaa qadka youtube-ka waan idin salaamayaa meel kastaa joogtiin aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin